talo ma socota mooyaan dee maalintii hore oo aan lahaa maxaa dhadaaye ha raalli ahaada walaalayaal baashi baa si ila qalloocatay ma garateen iyo codkaan iska eegayey weliba iskamaan xidhin oo balaayan ay soo garaacdana dooni maayo anyway maalintii hore aan lahaa gabadhaasi marnaba dambiile ma aha waxbaan dareemayey anigu naag baan ahay iyadoo kale dumar baan ahay waxa igu filaaday oo ay qanciyey video ay duubtay oo ay leedahay xarig baan ku xiran yahay faras baan kor saaran yahay in yar kabacdi waan daldalmayaa waan jiidmayaa waan walaaqmayaa ayaa waxaan idhi hayaay waxa soo socda waaweynaa inantaas waxbay dhoodhoobaysaa waxbay xeerinaysaa waxna way qarsan kara laada waxna way sheegi kara laada hadal iyo dhammaantii la ogaabaa ka dambaysay ilaa odayaashii isku ceeboobeeyeen social media isku soo galeen balow dhan ka dhacday xaalmustuur baaba roon baan isleeyahay xaalmustuurkii waa dawaqa xitaa waayahay wixii tegey weliba wax tegey maanta waxaynu wada arkaynaa gebigeennuba runtu waxay tahay inay abiis ku jirtay wax walba oo safiye ka imaada in khasab looga keenayay oo cunaha ay ka xirnayd faraskii ay sheegaysay inay saaran tahay anigu waxaan aaminsanahay dambiile maaha gabadhaasi weligeedna ma noqon inta la guursaday sida dumarka loo guursado ayaa la inkiray guurkeedii baa la qariyey xaaraan baa laga dhigay wuxuu ku sameeyey oo kale tolkeed buu ceebeeyey nafteedii buu ceebeeyey ilmaheedii Soomaaliya dhan waad ogtihiin sheekada inaga sheekayn kari maayo waad la wada ogtihiin maxaa maanta indheen ku arkaynaa uuna in kalba magaalada laga yar saaranayo baaskool lagu qabanayo inta baad arkaysiine maxaa kaloo yaalla talow maxaa kaloo yaalla talow muxuu ku sameeyey hadal iyo dhammaan waxaan inii sheegayaa hadal badan horta waxba tari maayo waa baryo rabadaan ninkaasi sidii aan filayay buu noqday lacagteeduuna ku dilayaa iyo shilimaadkeeda hadduu raganimo uu kaga sasabta u waayey oo uu la noolaan kari waayey maxoog intuu uga qaato lacagta ayuu doonayaa dabaabadaha ruushkana inuu ku qaylsiiyo oo ay la haaliyaan sidii kuwii ka daba nacmeynayay isaga horta xukuumad baa jirta Somaliland sharci ahaan marka dhaqan ahaan laga yimaado iyo filinkaas iyo odayaal iyo filimaanta soo dhaga yimaado annaga dhan haddaanu Soomaali nahay waxaanu ku qanacnaa ninkaas in safiya waajibkeeda looga mariyo xaqeeda looga rido dowladda Somaliland u xukunto inuu magaalada sii marmaro waa xaq darro wixii la soo jiidayay iyo wixii odayaal la ceebeysanayay iyo wixii inta buu yiri cod baa la duubay gidaar baa la jiiday way tiri wuu yiri maxaa ugu dambeyn oo aragnay gabadhiyo balanbalsan allahu waaye oo meel fadhida oo baaskoolad lagu hayo oo waliba loo hanjabayo inanku gowrici kara ma ogtahay buu yiri naadinku waa magafa war le magafa jooga Somaliland ma boogay maanu yahay waa ninka magafahan oo qabta wadanka waa magafa weeyaan magafa dumar weeyaan waliba saqajaan isnacay weeyaan oon xishoonaynin ha laga qabta dalka haddii gabadh talabaad Safiya Tusmo de Somaliland weeyaan Somaliland baa u dhalatay hablaha kale oo aan Somaliland u dhalan muxuu ku samayn karaa waa habuu qambe muxuu ku samayn karaa ninkaasi ciidamada ma maysa dalkii dawal cabsoonayaa bad magafahan baa jooga kolba toor ku isku maraya waliba garabna helay adduunyada ilaahay adduunka waxa iiga daran isaga kuwii baasta balbalaarka ahay kadib hadlaya iigu daran laakiin nimba waqtigiisa ayaa soo mari doona safiya waxaan leeyahay horta naag Somaliland tahay isna waa Somaliland waa hadii ay xukuumaddu si daacada u shaqeynayso aan xukuumadda xukuma sheegi karo waayo welina ma tagin
mana oran karo sax bay u shaqeynaysaa iyo khalad bay u shaqeynaysaa midna waxaan ku tusaale qaadan doonaa xaquuqda tusmo sidii u goyso ayaanu ku tusaale qaadan doonaa anaguna waxaana aaminsanahay xaquuqda tusmo in ay Somaliland iyo booliska iyo dawladda Somaliland inay wax ka qaban doonaan magafaha hooga iyo kala socda habeen iyo maalin ilaahay caaya khamriga isku dhurayana inay xiri doonaan waa in la xiro gabadha magteedana ha la dhiibo waa la xumeeyay tusmo suxun baa loo galay alla tolaaye خاصة هذا الوكالة وبالأنك يا بركنا لوك يا باي مسافة لسكو قميستا ونما باركين بولي وقميس عين كاسنا متشرا هيا والله باي هلا لسكو صايع سبحان الله تاسنا متشرتا حالي حتى عندها لها عافنا درابة يقولي على هيد رنتي حالي متعاون حالتنا سوشيال ميديا مسوق لنا عنو هذا مش شقينين رنتي شلت هلا وحكراكم مشغول سنة dad baa ii joogay ilmihii iyo aftirkii xasan ku mashquulsanaa ma soo gelin ba xitaa ma eegin Facebook xalay ilaahay waa kaan tusin saaka markaan ilmihii iskuulkii geysanayay baa Facebook YouTube kii furay la Facebook inta daaqada waxba ka soo dhacay dhoto inta naantii tusin maxaa soo celiyay إلا أنتي وين بابتها إلا أنتي وتمي اللي قاوية أو محارد أي يدوم ولي بمدح هذا العرق مسكين تا أو قرن عدلا وحيري الله دو يدي شيء كذا يقول يابك بدل الله نكوا دان ونخوا كسيا الله نكوا عادي ما ونخوا نتصي عادي ما دوا إبري ويان ولا يوم ولا يوم. يعني سقط تيجي الجريسي عادي والجريسي عرض السي عادي ده ما يعني هرجيسة ثلاث كيلو قوم صحيح. كل كان بيجي يستفق هذا. أنت شيء ما كم مغن، أنت الوضع هذا ما كم مغن، ما كان ماشي الوضع حقيقي يوتيوب صفية يلا عندي ذا يقرأ اليوتيوب. ورتوك حياة شو، توك حياة شو ولا حلو حكى عنه. مديو، نكمل وعليه. فتق كسيرة، دعين لو واجت لو حلاي، ما بقول إذا اللي هذا يقدر كلام ممقالك قبل الساعة وإذا ملح قوانت كاميرا دلور تقلد يعني عايز مقص على اللي يضل عايز مقالك الضباء تشرف عليك أبو ساق أي أبو ساق أبو ليه عليك ساق ليش تكتبين كذا ساق في سوين قلت ماركي تكتبين كذا ساق واحد بدين ثايا الحمد لله. I don't know that. Somaliland إنه نقطة ماشي وعدالة بدر. ما أنتي إن Somaliland أي نقطة ماشي وعدالة بدر. ما دام أي من هرتا مد الله في الديابة ماشي وحويان Somaliland عدالة إنه نتستو. Somaliland لبدا قف أو Somaliland هذي ما أنت قر ترى وكلا قاعد ويسو نقول مدن كيس إمرسين ويسو dad kale oo taan Somaliland dhalna ima bamayaan way cabsoonayaan sababtoo ah magafaaba jooga meesha ma garateen waxaana rajaynayaa in dawladdu ka yeeli doonto sida waajibka dhibaatooyinka safiir loo geystay iyada iyo ehelkeeda ee beesheeda ceeb ku ah ee odayaasheeda sidii loo galay oo wixii lagu sameeyay de odayaashiisana ma isaga khalday mise waa sideedii labadii isaga la socday maxay ahaayeen garan maayo anuu ku wareeray kowdhe laakiin dad kala afka la gali maayeen ninka cajuunka lagu sheegay Allah cajiinay ninkaas ma arkaysiin dawladda Somaliland waa inay safiir uga soo rido xuquuqdeeda 5 jeer ba dhimatay 5 jeer ka badan intay dhimatay gabadhaas mar waxa la oranayaa uu been bay sheegtay oo muu qabin wayna la tumatay maxaan raadayay Turkiyeed baa la soo rarayaa cadayn bay waayeen maxaan raadayay way baxsatay oo بنتي بالعرض أمريكا بيتكتي إيه مكانه الحاصل رنت إلى هاي مقارنين وحيالها قال أنا كسي هذا اللي هو إسكندن بي وبرير رمضان لكن وحن أنا جا مثلنا هاي أو والله دوينها صومالية ذودن
حتى كوا سومالي لان أي ماشان وفرديان قبلها إن حقوق ذي ذلو سوردو because waxaan xasuustaa markii ugu horeysay sheekadu bilaabmaysay dadka Soomaaliland xitaa way kaceen safiya garab taagnaayeen isaga khaldayo afar kala intuu soo kaxaystay iyo booyadii kaarsiis iyo balaayo dhan uu soo rartay ayaa huuhaa la bilaabayo waa la khalday ummadii halka markii runaga bal gabadhaas ka waran hadayna hadlin bal gabadhaas wixii lagu sameeyay xitaa ilaa cadeyn ma haysan kuya fiideo iyada telefoonkeeda lagu duubayo iyada iga tiri iga duub لأنك معادي ما يهرت إنكم حاجة سيا ورما ينتي فيديو اللي لا كنا قاق ولا خصب كو هذا الهراتي وهي ستي يبقى سكولة ده ما ينتي هسه أنا قاعد أقول كنا دوبي سبي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاسو كنا وجرا كاسو كاسي يقولي وأبوان بلايك أبوان أنت وما قفي أبوان وحبك ما هو كاسي وسقطان صناعي قول الذي عدين يسقي أفرتي كده بناقين يسيبه صفيانة وحلاها صفياي هرت واحد أمثال سومال لأن حقوق هذا يكوسو هرت شكل بيقول لهم بحنا بقضية إسلامية وحث لهم بحنا حقوق هذا سومال لام بيتهلا سومال لام بنا شرعي سومال لام بنا قوصة مينيا شرعي سومال لام بنا إني دحية وهدي أي شرعي جرو حقوق هذا السومال لان بتقول هذا وان قرتي إيجار هذا بربلار كهرتا قف بالو يقانا قبل أو يوتيوبرنا حسنا أكو أركي مركو هريسي ها فتون في البلار كلها فتون ومجيدو بالبلار تو بجرا مركب البلار كاس فضوني محل ده إن إيش يكسر واسكو خلدي صفياي تاساني مرنا معفن لهن هتان أديقاها مرنا معفن لهن بويدا كارسيس يسخو دوان مرنا معفن لهن سقطانا دعالو شوين لي مرة هو مقعيدا أوريانا كسو لغو كبلسي كبايس مديرا ليري لكن مدبان كوشيغيا meesha adiga lagu keenay meel ka foolxun in la keeni doono ayaan ogahay ilaa waaba taqawladu cad yihiin maxaa ay la qowleysanaysan ninkan waalane iyadana meesha san uga gudbay alxaasil almuhiim ku waxaan Soomaaliya oo dhan ay sugayaan rag iyo dumar iyo waliba Somaliland ba in safiya xuquuqdeeda waa la xumeeyay tulkeed baa la xumeeyay dadkeeda la xumeeyay maxaa dhacay magaceed baa la xumeeyay ubadkeed baa la xumeeyay sharafteedii baa la xumeeyay jiritaankeeda lagu joogjoogsaday waa la gumeystay abuse baa lagu haystay oo ilaan gabadhu waxay la aamusnayd oo nin la wax xidhnayd inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ilaa naastur allah yo saan ma jirtaa ani la hadda maskaxeeda inay ciyaar ay aragtay in run aragtay waan garan lahay gabadha sida lagu hanjabiyay iyo sida loo kor taagnaa iyo sida looga tuuray masarkii yaraa iyo meesha yar iska soo fadhiday iyo ama idil ama idaa ay u ekeyd ama idil ama idaa aday ku taalaaba u ekeyd oo hadal ku gujinay war wuxuu waa maxay saqajaansan anigu muxuu ah ilaahay ceebtaadu hadda banaanka u soo saaray cajuuniyow alla ku cajuun saarad ku cajuumantahay adduunka dhan ceeb baad uga baxday balaa kula geesa xiirnaatay nin raga aqligiisa wuu lahaan lahaaye dee waa waxaan u cabayo iyo ciyaar suqnimiyo iimaan la'aan u dhashay marka hore ma qof baa xaquuqdiisa lagu dilaa maad ka sabatid oo maad maxaa dhacay dabada qabsatid oo maad iyada hadalkeeda maqashid oo maad adigu iyada ma garan war waa ku sidaarta maxaa ka hasiya a'uudu billahi min shaytaani rajiim bal ka waran waxaan ku sheegay adduunyada inta isku jirto walaal macaan isla kuwii mooryaanta kula ahaa ee wax kula dafayay iyada shirqoolka kugula sameynayay ayaa fiidowga dibadda keenay sida maqaalaygu ah markii lacagtii yar dooshay America ku noqotay ilaa shilin dooma jiray janad yar markay baxday America ku noqotay inigii baa iscunay inigii baa sarkaatay haddana maanta jeelasha lagu dhigi doono iyo balaayada ku qarxi doonta kuwii shalay kula laaqay sunta ayaa maanta adiga jeel ku qorsheeyay sirtaadana iyaga dibadda u soo saaray dadweynaha Soomaaliyeedna iyaga u soo saaray isla gabadhii ay shaga kula cunayeen iyagii ayaa maxaa dhacay safiya kaaga hiiliyay
aday kugu rakaatayna iyagu safiya uma hiilinaynin laakiin meesha xaquuqdii safiya ka soo baxday waxaan alla ku saar adigii kuwa kaag fadhiyaba kulama oga cidaadoo dhani laakiin afarta qawleysatee kula ag fadhida rag iyo dumarka u dhaxaysa halala xiraan dhihi lahaa dayuuska xun naagtiisa ka sheekeynaya naagtiisa iibinaya ee naagtiisa fiidooye ka duubaya si uu lacag ugu helo oo wax magartaha waa dayuus is iibide marka dambe aadu quran yaho war waxaana ku dambaamaan u doon maayo saqajaanka maanta aad baan u faraxsanahay marka hore madaxay go'ay markii dambana waan degay xaquuqdii safiya soo baxday xaquuqdeena Somaliland bay ku leedahay haddii kale wallahi adduunka dhan baa la isku ceeboobayaa waa in gabadha xaquuqdeeda la siiyo waa in ninkaa la xidho wixii ka daba naageynaya ka daba nacameyna ku dara careebina ku daafada walaalayaal madaxa aad ii xanuunaya aniga maanta garan maayo madaxa la igu dhuftay xitaa kaniin waan cunay ma soo mani anigu maanta kaniinkii xitaa madaxa waan cunay wala xaaga gabadhaas markaan arkay madaxii la igu dhuftay marka hore baan anigu maan samaneyn iyadoo darteed soonku maan furnee dee anagood ogtii marna waan soonnaa marna lama soonno dumarku waa iska caynkaas maan soomaneyn maanta anuu madaxu markii aan soo baxay saaka oo aan dibadda u baxay madaxii la igu dhuftay markaan iskuul ka soo noqday ilaa intaan sii socdo waan daawanayay moogtahay ilaa hadda madaxa ay xanuunaya xitaa codkayga inaynu soo gaadhay ma garan karayo because aad ba uma hadli karaba dhakada ay xanuunaysa saayid marka ilaahay barhaana kala asturo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa Somalilandna ilaahay ka soo aan ka rajaynayaa safiya tusmo xaquuqdeeda in ay ka hesho Somaliland maxaan kaloo aan sheegaa safiyana walaal waxba kuma soo gaarin adiga cadow baa ku helay jiritaankaaga ka xumaadeen quruxdaada ka xumaadeen haybadaada ka xumaadeen abwaanimadaada ka xumaadeen oo wayna qaar fanka ku jiraan inta adiga ku haaligeysa oo adiga ku shirtay maxay ka qaadayaan laakiin nimu ilaahay la jiro cid maxba kama qaado وانا قانا ضد جلس نقضي نوع dhaqmaan وانا قانا جلسنimo iyo waxaas uu ka beertay iyo in lagu haaligo shilmaadkaaga in lagu cuno isagana ku jabiyay cid walba jajabe hada maanta saacada meel garuulay YouTube alla baaye ila naastur la madax xanuunay ma hal karo wuxuu leeyahay tiyada tiriga duuba guriyada tiri oo gabadhan arkeenay imika anagu muxuu mooday anaga si sunu moodan sawirnaa iimaanka alla ka qaado dhagax laga garo uu wasi hadlayaaba inuu isqariyeed bayda cabanu ka hadla ma ahayn a'uudu billahi saana ma jirtaa wala dunida waa socotay horta laba sida maanta waxa ku cadeeyay in aakhirsan meesha ugu dambeysay aynu joogno rabadaantii umadus dhuubi jirtay afka ay daboolan jirtay indhaha ay xiran jirtay ayuu baba ceeb la fogaya fagde wacde ninba soo saaray naag ba ordaysa allah inta ka nuug inta ka jiid inta ka kane inta islaamnimadu way fogaatayba waa sidee dhaqan heshiiyeen horta isaga dhaqan mar hore u duulay islaamnimadii ayaa qarka saaran waa sii baxaynaa waa bariye rabadan waxa aynu awro hooyo la soo saarayo oo raggeeni Soomaaliyeed soo saarayaan waxaan kala hadlan ka oranayaa waxaan maqlaayay farxaan yar oo dhahaaya yarkii oo inanteen fanaanada qabay muxuu yiri fiidowga hadda waan hayaa warooyoy dharko iyo ka dhigmin adigana sharaf waxaad leedahay intaad fiidowgeeda badeeda gelin waayo waa naagtaada maxaad ka soo saari kartaa natin inan yar baa tahay adigu aad baad u yar tahay walaalo intaas hayni kala gaadhay inigana kale shirkadina qowdaan jeclahay dee ka waaweyna way socotaan waan yaabanahay horta waxaan garan maayo ka udhay laakiin aniga aad waxay ugu xanuun badan sheekada Safiya Tusmo wama qaracmeba ilaa hadda madaxay xanuunaya gabadhiyo meel fadhida marka arkiiso loo galayo wallahi waan gariire dariiqa waan mari kari waay suuqa ku dhaxarkay marka iskuulka imahan socday
macnaha jahada iga luntay wixii aan indhahayga ku arkay marka dad waxaan si baakan bixi maaye ha isku daawaneen sug gurigaan midda waan dhamaystay khalkhalkii galay madaxii baa qac yidhi ilaa imika madaxa ay xanuunaya xitaa cunay paracetamol ila maan soo manayne walaa xaaga marka ilaahay baynu leenahay Soomaaliya foolxumada inuu aan ku jirno walaalayaal waad arkaysiin foolxumada aynu dhex taaganahay waad arkaysiin waxaan ka baqay in la yiraahdo beri bay Soomaali jiri jirtay beri bu dhaqan jiri jiray walaalahay waan u salaamayaa Ramadaan Kariim soonkiina kii alla inaga qabalahay inaga dhigo iyo salaadiinaba ilaahu bariya Ramadaan de waxba duulduulaye ilaahu khayrkiisa ina siiya ilaahu nasiib inta sooman ilaahu ka aqbal ilaahu ceebteeda astur ayaa lagu ducaystaa de Ramadaan tuu cid shaytaanka sallallahu alayhi wa sallam soo boodbooday ma dadkii soo wada fagay Somaliland shaytaankooda la iloobaan malayn la xidhaba astaghfirullah وأنا سلام يا ولد